بسم الله الرحمن الرحيم. sida aan markii dhaweyd sheegay dhaartii madaxweyne ku-xigeenka qodobka 129 ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland oo sheegaya dhaarta dastuuriga ayaa lagu dhaarinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland sida ay dhaartu u dhigan tahay ayaanu iga dabaaqay anigoo ah gudoomiyihii maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga waxaa kaloo soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha guurtida iyo gudoomiyaha golaha wakiilada oo baarlamaankiya inay marsada inala joogaan iyagoo mudan. waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. wabillahi tawfiiq.